wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa ku eedeeyay dowladda Qatar in gadaal ay ka riixayso khilaafka dowladdiisa kala dhaxeeya Soomaaliya. Anwar waxa uu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka go'an tahay ilaalinta midnimada Soomaaliya isla markaana khilaafka hadda taagan uusan u qalmin inuu waxyeeleeyo walaalnimada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ka dhaxaysa. Qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa ayuu isku weydiiyay ilaa goorta uu sii socon karo khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Anwar ayaa yiri dowladda Imaaraadka waxaa ka go'an ilaalinta midnimada Soomaaliya dad ahaan iyo sidoo kale dal ahaan Soomaaliya waanu qadarinaynaa ayuu yiri wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay heshiiska shirkadda DP World ay kula wareegtay maamulka dekedda magaalada Berbera waxaana uu ku celiyay in heshiiskaasi la saxiixay xilligii dowladda federaalka Soomaaliya ee ka horeysay midda hadda jirta isla markaana ay markhaati ka ahaayeen dowlad goboleedyada Soomaaliya. Anwar ayaa yiri waxaan rajaynaynaa in xiriir wanaagsan oo walaalnimo mar kale uu dhex maro innaga iyo Soomaaliya. Sharmaake Maxamuud Xuseen, Kalson TV, Muqdisho.